wax ka baro taariikhda boqorkii caadilka ahaa ee magaciisa la oran jiray Dulqarnayn. Dulqarnayn wuxuu ahaa boqor caadil ah oo boqortooyadiisu ay gaartay adduunka dhinac walba iyo taraf walba. wuxuu joogay xilligii Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuu diinta ka qaatay Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuuna Kacbada la tawaafay Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil calayhi salaam. waxaa la yiraahdaa Dulqarnayn wuxuu noolaa oo adduunkan joogay oo xukumayay muddo 1600 oo sano ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga sheekeeyay quraankiisa 3 safar oo Dulqarnayn adduunkan uu ku maray. safarkiisa koowaad wuxuu ku tagay galbeedka u shisheeya meesha qorraxdu ay ku dhacdo. wuxuu ugu tagay dad qorraxda caabudaya oo mushrikiin ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay choice, wuxuu ku yiri waxa ku banaan in aad ciqaabtid oo aad cadaabtid ama in aad waanisid oo diinta aad ugu yeertid. Dulqarnayn wuxuu go'aansaday inuu dadka u naseexeeyo oo kii naseexada aqbalana uu soo dhaweeyo, kii diidana uu ciqaabo. cadaabta Allahna subhanahu wa ta'ala ay u sii dhiman tahay maalinta aakhiro. muddo markii uu la joogay ayaa uu ka tagay, wuxuu aaday dhinaca iyo bariga, wuxuuna bilaabay safarkiisii saddexaad. bariga ayaa waxa uu ugu tagay dad aan xadaariyiin ahayn oo dhul saxara ah degan, oo guryo aan lahayn meel ay qorraxda ka galaan aan haysanin, maalinkiina badda gala, habeenkiina ka soo baxa. dadkii ayuu la joogay, wuu waaniyay, wuu u naseexeeyay, wixii cilmi iyo xadaarad uu ku biirin karay buu ku biiriyay. kadibna waa uu ka soo tagay oo waxa uu u dhaqaaqay dhinacaas iyo waqooyiga ayaa waxa uu kula kulmay dad aan la fahmayn luqadda ay ku hadlayaan oo ay ku hareeraysan yihiin buuro. dadkaas Dulqarnayn markii uu u tagay ayay waxay uga dacwoodeen Ya'juuj iyo Ma'juuj, labada qabiil oo la yiraahdo, waxayna u sheegeen nimankaasi inay ku soo duulaan oo fasahaadiyaan oo dilaan oo xoolahooda dhacaan. waxayna ka dalbadeen in uu xal ka keeno hawshaas oo nimankaas uu derbi uga sameeyo aysan ka soo gudbi karin. lacag ayayna u ballan qaadeen inay siiyaan. Dulqarnayn wuxuu yiri waxba idinka kama baahni, kaliya igu caawiya manual labor, isoo aruuriya birihii ayuu yiri afuufa. kadibna wuxuu ku shubay nuxaas. birihii wuxuu ku kala awday 2 boorood dhexdooda. meeshii nimankii Ya'juuj iyo Ma'juuj ay ka soo galayeen oo albaabka ahayd ayuu derbi weyn ka dhisay. wuxuuna u sheegay in derbigaas ay dumin doonaan oo ka soo gudbi doonaan maalinka Allah subhanahu wa ta'ala uu u idmo, maalinkaas oo ah aakhiru zamaanka, kana mid ah calaamadaha waaweyn ee yawmul qiyaamaha. waxaan ka sheekeyn doonaa next qisada Ya'juuj iyo Ma'juuj.